Tawfiiq ee degmada Yakshiid ayaa ka dhacay qarax ka dhashay mooto bajaaj iyo sidoo kale naftiyahaligii saarnaa mootadaasi waxayna saraakiisha ammaanka ee kormeeray goobta uu qarax ka dhacay ay warbaahinta u sheegeen in qaraxani uu ahaa mid ay dhagarqabayaasha Al-Shabaab la damacsanayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir. Waxay sidoo kale saraakiisha ammaanka ay tilmaameen in mootadaasi uu saarnaa dhar ka mid ah dareeska ciidamada booliiska si dhagarqabayaasha ay u fududeystaan dhagarta ay la damacsan yihiin shacabka Soomaaliyeed. Waxaana goobta uu qarax ka dhacay soo kormeeray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax isagoo ka warbixiyay qaabka ay wax u dhaceen. ciidanka amniga ee degmada oo ku jira howlahooda caadiga ah roondooyinkoodii baa waxay ka war heleen in gaarigan ama mootadan ay istaajiyaan waxaana isku tagashay inay diido inay istaagto kadibna dhowr daqiiqo kadibna waxaa ka dhashay qarax sida hadda halkan ka arkaysaan waxaa saarnaa qof nafti haliga ah iyo darees u eg darees ciidan iyo kabihii oo runtii laga yaabo inay gudaha magaalada u soo socdeen inay ka geystaan dhibaatooyin kala duwan sida arkaysaan waa isla maanta waa dhacdadii labaad oo isku day ah oo ciidanka amnigu ay fashiliyeen waxayna ku dadaalayaan nimankan sidii ay mar walba cadawga ama mar walba ay shacabka Soomaaliyeed dhibaato ugu geysan lahaayeen. Waxaan u mahadcelinayaa ciidanka oo maanta dhacdadii labaad halkan ku fashiliyay qaraxana wuxuu ku koobnaa qofkii gaadiidka qofkii naftihaligaha ahaa ee mootada watay kaligiisa ku qarxay. Waxaan dib u baari doonaa taargada mootada iyo sida nooca qaraxa oo ah meesha saaran laamaha amniga baaritaan ku sameyn doona laakiin halkan waxaa ka cad inay shabaabku aysan u kala soconayn u soo diyaar garoobeen inay shacabka dhibaato u geystaan una soo maraan wax kasta oo adeega shacabka fududeyn kara. waa ogtihiin gaadiidka mooto bajaajka shacabka magaaladan degan sida ay u isticmaalaan iyo ciidanka amniga sida sahlan oo ay hadda ugu fududeeyaan wadooyinka magaalada. waxaan shacabka ugu baaqayaa marka inay ka feejignaadaan qof walba gaadiidka ay raacayaan mootooyinka. ciidankana waxaan farayaa inay feejignaan dheeriya ay muujiyaan cadawgu sida la socotaan maalmihii u dambeeyay waa u suurtageli weysay inay siday rabaan gaadiid u soo galiyaan gudaha magaalada. hadda xeeladii waa bedeleen waxay rabaan inaysan shacabka magaaladan degan aysan u kala soocmin oo la cunaqabateeyo.